howlwadeenada kala duwan ee ka howlgala xarunta hooyada iyo dhallaanka ee xaafadda New Gabley ayaa shaaciyay in ay gabi ahaanba hakiyeen hawl maalmeedkii ay ka qaban jireen isla goobtaasi hooyada iyo dhallaanka ee xaafadda New Gabley waxaanay shaqo joojintaasi ku sababeeyeen kadib markii ay iska waayeen bayrolka wasaaradda caafimaadka isla markaasina 27 kamid ah howlwadeenada halkaasi aanay gabi ahaanba waxba kaga darin bayrolka wasaaradda marka laga reebo agaasimaha goobtaasi oo iyada hore uga mid ahaan jirtay wasaaradda caafimaadka hadaba howlwadeenadani oo warbaahinta la hadlay isla maanta si toosana abaabada iskugu dhuftay goobtaasi ayaa cod dheer kula hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo waliba madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyagoo ka dalbaday in hoos loo eego cabashadoodani waxaanay xuseen in muddo 2 sanadood ah ay si tabarucaad goobtani uga shaqeynayeen iyagoo carabka ku dhuftay in wasiirka wasaaradda caafimaadku mar u soo booqday u ballan qaaday inuu qaar ka mid ah shaqaalaha bayrolka ugu dari doono balse midaasi ay noqotay waxba kama jiraan waa sida ay iyagu hadalkooda u dhigeen hadaba howlwadeenadani oo warbaahinta maanta la hadlay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa New Gabley MCH waxaanu shaqeynaynaa muddo 2 sano ku dhow taasoo ku shaqeynayno si tabarucaad ma hayno ama maanu helin xaqii aanu ku lahayn wasaaradda caafimaadka maanta in la soo dhajiyo bayrolka la soo dhajiyo sidii loo kala helay gobolada taasoo saamigii aan fulinay la oranayay Gabley ahaan gobol bay tahay aanu yaraysanay oo aananu helin tiro fiican kaba si daranay New Gabley MCH na waxba weeyaanba 27 qof oo ka shaqeeya midna waxba kuma leh taa macnaheedu waxaan uga jeedaa waxba kama helinba magaca musaanan ku dhimanay halka dib ba ka taagan cadaalad darrada ka taagan cadaalad darradaas oo wasiirka caafimaadka DG-ga in alla inta caafimaadka khusayso oo dhan taa waxaan leenahay dib loo eego arinta dib loogu fiirso sida ay tahay way leeyihiin gobolka waxa laga dhisayaa MCH kale oo dheeri mabalulatay maxay leeftaabay Soomaaliyeed kuwii hore waxba loo laayahay maxaa laga dhisay kuwa kale intaan waxa oran lahaa in dalberhoyn laga dhigo kuwii imka shaqeynayay ee inta shaqeynay cadceeda taagnaa ee dadka u shaqeynayay ee hooyo iyo dhalaan ba caawinay law dawladda lagu sheegay waxa ka shaqeysaa oo Sool iyo Awdar intaan dhexda way ku dhibay magaca musaanan ku dhiman oqdeen taas oo aanu sheegnay inayna dadka xanaanada jooga oo dhan ay qofna una bayrolka kaga jirin aniga laga reebo marka aniga maanta sababtan u hadlay ma inaan bayrol ku jiri waay anigu waan ku jiraa already bayrolka laakiin shaqaalaha xanaanada ka shaqeeya oo dhan aniga oo kaliya ayaa ka shaqeeya 27 qof oo anigu kaliya kaga jiray dawladda dareemi kara baahidana waan u sheegnay markii hore waxayna noo sheegeen wasiirku inuu priority-ga nasiin doono marka de waxa nasiib daraa inuu DG-gu uu sheegay in cadaaladdan ku qaadanayna oo lahaa inuu cadaaladii ka taliyo gobolka dhan waxa soo MCH ku yaala mid hal qof iyo 2 qof wixii doonaan ka qaataan in anigana wax laga soo daray MCH-kayga de waxa weeye waa nasiib daro waxaan sheegayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi inuu hoos u eego xarunta dhan ee shaqeynaysa arkaysaan oo ay maalinta ay kormeerka yimaadeen ay aad ugu farxeen inay maxaa la yiraahdaa xarunta kaliya si fiican u shaqeysaa ay tahay ay aad ugu farxeen adeegeeda xarun 2 sano kaliya dhisana ay ahayd ana labada maqsin aan ku darsanay anagu intaan bulshada ka ururnay liiterka gaarsiinay markii dambe maayirku noo dhameystiray anaga soo dadaalana waxa nasiib daraa mudane madaxweyne in xanaanadeeda hal qof lagaga dari waayo bayrolka ta shaqaaliin niyad xumay bay laag taageen ta anigina oo ka sii daran oo maamul baana marka waxaan codsan lahaa in dib loo eego cadaaladda la sheegay maalintii dhaweydna DG ku hadlay iyo ma aragtay maca wasiirku in cadaalad dib u eegtaan waxaan ku noqonayaa xagga wasiirka caafimaadka isagoo soo maray wuxuu nagu yiri liiskiina waxa loo gudbinayaa DG-ga ilaa 5 ilaa 4 bal idiga siin doonaa uu nagu yiri waxa weeye waxaad ballan qaadana wax tahay madax baa tahay waxa fiican waxaad noo ballan qaaday inaad sida noo siiso sida ula socdaan xanaanaduna ilaa war dambaanu helino way xidhnaanaysaa geesta kale qaar ka mid ah haweenweynaha xaafadda New Gabley oo iyagu goobtaasi ka hadlay isla markaasina ka hadlay arrinkani ayaa yiri oo de inta idinka noo galay halka idinkaana dhigay maalinta halka noogu timaadeen waxaadna tiraahdeen anaga idinka war haynin meel la'aan baad sanna dhigteen waanu ka tageynaa idinkaana xiray halka sidaas in isku ognay madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyo intii caafimaadkaba cid kasto fariintaasi ay gaadhaan waxa leenahay si degdeg ah looga soo jawaabo oo danaynaysa bulshada New Gabley ama se gobolka Gabley
arrinkaasina haddii xanaanadan ay xidhanto xaafadani khatar bay ku sugan tahay in hore loo soo gaadho baaqaa ciyaalku ay hore u yidhaahdeen isku soo wada duubo gobolka cagaaran ee Gabiley oo ah mid ilaa hadda aan ansax ahayn walow gobolnimada uu ugu dhawaaqay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Mudane Daahir Riyaale Kaahin ay kulmiye ballanqaadyadii ay u sameyn jireen bulshada reer Gabiley oo ahaa in ay gobolnimada Gabiley horgeyn doonaan golaha wakiilada ayaa midaasi waxay noqotay qowda maqashii waxnaha u qaban taasi oo sababtay in Gabiley xuquuq badan oo ay lahayd ay ku weydo gobolnimada maqaarsaarka ah ee ilaa hadda aan ansaxa ahayn iyadoo taasi ay inta badan dadku u sababeeyaan in ay Gabiley xuquuq badan oo ay ku lahayd xukuumadda dhexe ay ku weydo maadaama gobolka cagaaran ee Gabiley uu haddaba yahay mid buuxiyay shuruudihii gobolnimo dhan kastaba waxay isweydiintu tahay waa maxay sababta xukuumadihii kala dambeeyay ee xisbiga kulmiye ay u hagradeen in ay horgeeyaan golaha wakiilada isla markaasina ansixiyaan gobolnimada Gabiley maadaama bulshada reer Gabiley ay marar badan iyagu si hagar la'aan ah cod iyo xuduudba ku taageereen xisbiga kulmiye in uu qabto talada dalka haddaba caqabadaha hortaagan ansixinta gobolnimada Gabiley marka siyaasiyiinta xilalka kulmiye ka haya ee ka soo jeeda Gabiley ama xisbiga kulmiye ay dariiq u sameynayaan ayaa waxay ku tilmaamaan in ay tahay halka ay ka dhaqaaqi laadahay kala xadeynta gobolada iyo degmooyinka iyo waliba ansixinta xeerka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa taasi oo ilaa hadda xukuumadihii kala dambeeyay ee kulmiye aanay marnaba ku dhiiran kala xadeynta gobolada iyo degmooyinka maadaama xisbiga kulmiye uu golaha sharci dejinta Soomaaliland ku leeyahay in ka badan 52 mudane iyadoo marar badan ay dhacday mooshinno ay xukuumaddu dabada ka wado in ay marsiiso golaha balse aan midani xukuumadihii kala dambeeyay ee kulmiye uu weysa qaadanin su'aasha mudan ee bulshadu inta badan isweydiiso ayaa ah waa ay cidda awoodda kala xadeynta gobolada iyo degmooyinka iska leh hawshaasi sidoo kale waa ayo cidda awood u leh in ay golaha wakiilada horgeyso waa su'aal u baahan in siday tahay looga jawaabo ilaa iyo haddana lama garan karo halka ay ku dambeyn doonto xaalka xarunta hooyada iyo dhallaanka ee xaafadda New Gabiley waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Jubba muuqaal maqalka caalamiga Kalson TV gobolka cagaaran ee Gabiley